hay-adda qalam ayaa maanta kaalmo kala duwan soo gaarsiisay barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Burco. Kaalmadan ayaa ka koobnayd bacaha roobka laga galo, waxaana kaalmadan u noqonaysaa mid aad ay ugu baahnaayeen maadaama xilliga lagu guda jiro xilli roobaad oo ay curteen roobabkii guga. Barakacayaasha ayaa ku nool guryo aad u yaryar oo ka samaysan karaaton iyo baco, waxaana deeqdan u noqonaysaa mid ku habboon xilligan. Qoysaska maanta bacahaasi roobka loo qaybiyey ayaa ka koobnaa ilaa 60 qoys oo ay ka mid ahaayeen dadka xubnahoodu kala dhantaala yihiin ee loo yaqaan naafada iyo weliba guud ahaanba dadka jilicsan ee bulshadaasi ka mid ah. agabkaasi alaabta markii loo qaybinayay barakacayaasha waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco iyagoo alaabtaasi guddoonsiiyey barakacayaasha Soomaaliyeed ee ku nool Burco. waxaana xildhibaanadu tilmaameen inay deeqdan tahay mid ku habboon xilligan. waxaana xildhibaanadu tilmaameen in hay'adda qalam ay ka soo jawaabtay baaqi ay dhawaan direen barasaabka iyo maayarka degmada Burco oo ku aadanaa in la soo caawiyo dadkii roobabku waxyeeleeyeen. xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Nuur Cabdilaki iyo xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi waxay aad ugu mahadnaqeen hay'adda qalam oo ay tilmaameen inay tahay mid ku dayasho mudan. waxaana xildhibaanada hadaloodu ka mid ahaa maanta waxaanu joognaa xaafadda 15 May gaar ahaan halkii barakacayaasha maanta deeq buu soo gaarsiiyay. deeqdana waa deeqihii xilligii ay ku habbooneed oo bacihii roobka mar haddii xilligii guga ee roobka aynu ku jirno waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa deeqdan qiimaha iyo qaayaha badan oo insha Allah caawa dad badan ka jirsanaya roobka hadduu doo. marka aad iyo aad baan hay'adda qalam u soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaan leenahay insha Allah ilaahay ha idinka jazaaisiyo deeqdan wanaagsan aad soo gaarsiiseen. horta ilaahay waa mahad leh. runtii waxay ahayd toddobaadkii u dambeeyey ayay ahayd markii daadadka xoogga leh ay maaragtay iyo roobka dadka waxyeeleeyay ay maaragtay ay inagu imaadeen. runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay'addan ama ururkan qalam educational resource center iyo TV-ga maaragtay weyne university TV-ga oo runtii ka jawaabay baaqii maamulka gobolka iyo degmada runtii ay u direen dadka muwaadiniinta dawladda hay'adaha internationalka iyo kuwa localkaaba in dadka halkan wax ku yeeloobay dadku waxyeelay in macaawimada la soo gaaro. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. runtii waa ururkan waa ururkii koowaad ama qurba joog ahaa ee runtii keena caawimo keena degdega. waxa weeye halkan shiraaqyo ayaa yaalla runtii waa waqti ku habboon. dad baa guryihii ay qaatay dadka ugu badan ee dadka wax ku yeelay waa danyarta waxay u baahnaayeen waa maanta waa alaabta halkan hortiina taala ay keeneen. runtii waa alaab waxtara oo ay guryaha maaragtay saaran doonaan oo ay ka soo kabi doonaan dhibaatadii gaarsiin. geesta kale barakacayaasha ayaa iyaguna u mahadnaqay hay'adda qalam waxaana hadaladoodii ka mid ahaa meeshan dhibaatada aan qabno nolosha oo macnaha oo qutulyoonka le dhibaato ku qabnaa moogay nabadgelid horta waa reem dhibaatada aan ku noolayn waa u jeedin salaam ku jirno waa u jeedin hay'adii bacayalkaas loo keentana ilaah baa mahad iska leh. ilaahay ajri xasanaad Allah ka sii intii loo keentana aakhira Allah ugu fadhiyo. maadaama aan barakacayaasha gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco wallahi oo billahi si wacan bay dawladii iyo hay'adaha ay wax nagu siiyaan. agaasimaha telefishinka Universal gaar ahaan magaalada Burco ninkaas baa nagu soo xawilaa sidii taawun nagu siiyay 60 qoys baan meesha hadda aan loo keeno baca ah baahidana ilaahi baa dabooli karo. 60kaas qoys way nagu yartaa alxamdulillah. hay'adda qalam 60ka qoys ee noo keenta alxamdulillah ma sha Allah anaga uma dhibin ilaahi meesha ka keeneen ay ka soo qaadeen meel wax ka fiican Allah ugu shubo. وبشير إبراهيم Universal TV Burco.